بسم الله الرحمن الرحيم كل wanaagsan qeyrta nala socota meel kasta oo aad joogtaan waa 20ka September sanadka 2025 qodobada aan idin kugu haya barnaamijka tabinta caawa iyo qubanaha barroowshowna waxa kamid ah dawladaha Carabta khilaafaad weyn ayaa soo kala dhaxgalay waxaana la laalay hindisihii dawladda Masar ay ku doonaysay in ay dhistaan ciidamo midaysan oo Carbeed oo ka hortaga nidaamka Israa'iil aragtidaasi waxaa si weyn uga soo horjeestay saddex dawladood oo waaweyn waxaa ka mid ah dawladda Sacuudi Arabiya oo damaca hogaaminta uu si baan u waalay dawladda Imaaraadka Carabta oo xilligan u aragtay midowga Carabta inay saameyn madax banaanideeda ah ku yeelan karaysa iyo damaca dawladda Imaaraadka ee kobcinta dhaqaalaheeda iyo dawladda Qatar oo fariimo looga soo dhiibay Washington arrintan waxaa ka shaqeeyay dawladda ama nidaamka Israa'iil maxaase lagu macnayn karaa isbedeladan cusub ee hadda soo kordhay Israa'iil qorsheeda ayaa lagu wadaa in uu si weyn u meel maro haddaba maxay tahay warbixinta xasaasiga ah wargeyska The Middle East Eye oo qoray oo ku saabsan khilaafaadka Carabta iyo niyadjabka madaxweynaha dalka Masar General Abdel Fattah al-Sisi barnaamijka ayaan ku faaqidayaa khiyaarta inala socotay intaa waxaa raaci doona nidaamka Israa'iil ayaa markii ugu horeysay malaf xasaasi ah oo ku saabsan arrimaha dalka Masar iyo dhismaha ciidamadooda ee gobolka Sinaa ku wareejiyay dawladda Mareykanka isla markaana Tel Aviv waxa ay bilowday in aysan aqbali karin dawlad Carbeed oo ciidamo lixaad leh inay garab halkaasi soo degto saacadee waxaa iminka muuqanaya xiisadu inay sii kordhayso marka Rubeeyana waxaa lagu wareejiyay arrin si weyn xasaasi u ah oo dunida ay aad u hadal hayaan haddaba Masar ma waxa ay ka dhigan tahay in ay ku jirto saasaanta warar Israa'iil ay ku qaadi garayso waqtiyada dhow mar haddii la isla soo galay xaaladda gobolka Sinaa oo laga soo gudbay magaalada go'doonsan ee Gaza warbixin ayaan ku eegi doonaa barnaamijkan qodobkaasi ku faaqidi doono markii ugu horeysana dawladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran waxa ay ku dhawaaqday in aysan samaysan hubka nuclearka xilli maalmihii ugu dambeeyay ay soo bandhigayeen gantaalo tijaabo ah oo si weyn warbaahinta adduunka ay indhaha ugu hayeen haddaba gobolka bariga dhexe xaaladiisu waa sidee maxayse tahay walaaca sii kordhaya ee dhinaca kale laga qabo heshiiska ay wada gaareen ee difaaca dawladaha Pakistan iyo dalka Sacuudi Arabiya waxa uu ka dhigan yahay mid lagu burburinayo hindisihii iyo yoolkii Carabtu ay ka lahaayeen inay ciidamo samaystaan waxay ka dhigan tahay Pakistan markan inay ka faa'iideysanayso hubkeeda nuclearka iyo ciidamada Carabtana ay siinayso damaanad qaad amni oo si weyn ay kaga faa'iideysanayso badal dhaqaale ah dawladaha Turkiga iyo Iran ayaa sidoo kale laga saaray midowga dawlad ciidamo ballaaran oo wadamada Islaamku ay dhistaan dawladaha Sacuudiga iyo waliba Imaaraadka ayaa sal u ah hadda khilaafaadkan aadka u ballaaran ee taagan soo dhawaada khiyaaray qodobadaas ayaan ku faaqidayaa barnaamijka koowaad ee caawa iyo qubanaha barroowshow waxaan ahay Cabdicasiis Barrow waxaadna daawanaysaan YouTube channelkan fadlan si aad macluumaad iyo warar dheeraad aad u heshaan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara aad baad u mahadsantihiin ma ogtahay in dhakhtar Shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar nidaamka Israa'iil ayaa malaf aad iyo aad xasaasi u ah oo ku saabsan ciidamada sii kordhaysa dawladda Masarna ay geenayso gobolka Sinaa inay tahay mid halis ku yeelanaya guud ahaan amniga Israa'iil waxaana sidoo kale Netanyahu uu tilmaamay inaan la aqbali karin guud ahaanba arrintaasi telefishinka Sky News Arabic ee ka soo baxa dalka isutaga Imaaraadka oo soo xiganaya wakaaladda wararka Axios ee dalka Mareykanka ayaa arrimahan si weyn u qaadaa dhigay warbixintuna waxay leedahay wakaaladda wararka Axios ee dalka Mareykanka ayaa shaacisay in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu codsi u gudbiyay maamulka madaxweyne Trump si uu cadaadis ugu saaro dalka Masar inay ka laabato dhismaha iyo kordhinta iyo tayeynta ciidankeeda ku sugan gudaha Sinaa halkaas oo Israa'iil hadda ay ka dareemayso walaaca ugu weyn mas'uuliyiin Israa'iili ah ayaa u sheegay shabakadda Axios isku dabaridka ciidamada Masar ee Sinaa in uu noqday qodob kale oo xiisad xoog leh dhalinaya
iyadoo dagaalka magaalada go'doonsan ee qasana uu hadda sii laba lixaadsaday. Netanyahu ayaa la sheegay in uu xog iyo liis ku saabsan howlaha ciidanka Masar ku wareejiyay xogayaha muraha dibadda ee dalka Mareykanka Marco Rubio intii uu ku guda jiray kulankii ka dhacay magaalada Qudus Isniintii aynu ka soo gudubnay. Israa'iil waxay ku eedaysay Masar laba qodob oo waaweyn waxna ay ku tilmaantay in ay tani xiisadda gobolku ay kor u sii qaadayso. Masar waxay ballaarisay baa la yidhi dhabaha diyaaradahu ay ku cararaan garoomada ciidan ee ku yaalla gobolka Siinaa, taas oo suuragal ka dhigi karaysa in diyaaradaha baaxadda iyo quwadda leh ee dagaalku ay isticmaalaan. Masar waxay sidoo kale dhistay baa la yidhi xarumo dhulka hoostiisa ah oo ujeeddadu tahay in lagu kaydiyo gantaalo dagaal oo suuragal ka dhigi karaya Israa'iil in lagu weeraro haddii Benjamin Netanyahu uu isku dayo halkaasi tallaabo inuu ka qaado. Mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa sheegay in Masar aysan bixin fasiraad macquula oo lagu qancan karo marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqyada halkaasi ay ka samaynayso. Markii arrintan laga weydiiyey beetirisi diblomaasiyadeed iyo mid militari labadaba, taasina waxay sababtay in Israa'iil u gudbiso codsi ay ku doonayso Mareykanka si toos ah inuu u cadaadiyo Qaahira. Dhinaca kale, mas-uul Masri ah oo arrintan ka hadlay ayaa ku tilmaamay eedaynta Israa'iil mid aan la aqbali karin oo guud ahaanba meesha ka saaraya jiritaankooda ku aadan wararkan ay daboolka ka qaadeen. Marka la fiiriyo waddamada Carabta, maalmihii ugu dambeeyay kulamo xasaasi ah ayay ku lahaayeen magaalada Dooxa, kaasi oo looga hadlayay wararka Israa'iil ee ku qaaday gobolka Bariga Dhexe, gaar ahaan dalka Qatar magaalada Dooxa. hase ahaatee waxay Carabta gaar ahaan dowladda Masar ay soo jeedisay in dib loo yagleelo riyadii Carabta ee 1950kii bilaabatay ee ku saabsanayd in la dhiso ciidamo midaysan oo Carabtu ay yeeshaan. hase ahaatee diidmo cad ayaa ka timi waddamada boqortooyada Sacuudi Arabiya, dalka Qatar oo qudhiisa weerarka la kulmay, iyo dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Warbixintu waxay leedahay madaxweynaha dalka Masar General Sisi ayaa niyad jab iyo weliba isagoo garoodda la raaracinaya ka soo laabtay shirkaasi. Sacuudiga ayaa ku dooday dhismaha ciidamadaasi inuusan wax weyn ka qabin, hase ahaatee hogaaminta isaga lagu wareejiyo, halka dowladda isutaga Imaaraadka Carabtuna ay tilmaameen in Mareykanka uu soo farageliyo arrintan cadaadiska Netanyahu lagu qabanaya darteedna uu Trump bixin karo damaanad qaad amni, sidaa darteedna aysan u baahnayn Carabtu inay sameeyaan ciidamo midaysan oo gobolka Bariga Dhexe ka shaqeeya. waxaana ay ku tilmaameen arrintan inay tahay mid xiisadda gobolka aad u sii horin kara. Qatar oo inta aanu shirka ka dhicin magaalada Dooxa wafdi u dirtay Washington ayaa loo soo dhiibay go'aamo cadcad oo ka yimid Mareykanka, taasina waxa ay dhalisay Qatar in durbaba ay dib uga laabato damaca dowladda Masar. Warbixintan uu qoray wargeyska The Middle East Eye ayaa lagu tilmaamay in ay tahay mid si weyn haatan u baraarujinaysa dunida. Qaramada Carabta ayaa ku kala qaybsamay arrimaha difaaca iyo qatarta Israa'iil kadib shirkii Dooxa ee 15kii Sebteembar la qabtay, kaasi oo lagu diiday qorshe dowladda Masar ay soo jeedisay oo ku aadanaa dhismaha ciidamo wadaaga oo ay Carabtu yeeshaan una qalfoof eg qaabka NATO oo kale. Diblomaasiyiin Masar ayaa u sheegay wargeyska The Middle East Eye in dalka Qatar iyo isutaga Imaaraadka Carabtu ay si toos ah u hor istaageen intisaha Mareykanka ee Masar intisaha dowladda Masar aan yiraahdee ee Cabdifataax al-Sisi, kaas oo ku saleysnaa heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha Carabta ee lagu saxiixay magaalada Qaahira sanadkii 1950. Sisi waxa uu talo ka siiyay ciidamada jawaab degdeg ah inay bixiyaan isla markaana ay ku filnaadaan difaaca gobolka iyo xoreyntiisa. waxaana dhinaca kale uu meesha ka saaray in ku tiirsanaanta waddamada shisheeye iyo quwadaha Carabtu ay ku hoos jiraan guud ahaan ballalaalo. waddamo ay ka mid yihiin Sacuudiga ayaa soo jeediyey taasi inay tahay wax wanaagsan, balse lagu wareejiyo hoggaanka ciidamadaasi. Masar oo aragtidan lahayd iyo hal abuurka ayaa Sacuudiga u soo jeedisay in marka la fiiriyo hanaanka dhismaha Masar aysan jirin cid kaga habboon dowladda Masar arrintan inay qabato. Si kastaba ha ahaatee, dhowr maalin kadib dowladda Sacuudiga
ayaa saxiixatay heshiis iskaashi difaaca oo ay la gashay dowladda Bakistan taasi oo muujisay walaaca sii kordhaya ee khaliijka uu ka qabo in ay kalsooni la'aan ba'an ka hayso dowladda Mareykanka inay xakamayso Tel Aviv. Sisi waxa uu ka carooday natiijadii ka soo baxday shirkii madaxda Carabta. Madaxweynaha Masar ayaa sheegay in uu niyad-jab weyn kala soo laabtay Dooxa kadib markii dagaalka khaliijka dalalka khaliijku ay ku adkaysteen arrinta lagu koobayo golaha difaaca ee wadamadaasi iyagoo laga reebaya baa la yidhi wadamada Iiraan iyo Turkiga oo dowladahan ay u arkaan kuwa aan ku habboonayn xilligan in ay ku soo daraan iskaashigan. marka la fiiriyo madaxweynaha dalka Masar ayaa rajeynaya in shirka laga soo saaro tallaabooyin cad oo ugu yaraan ku aadan mowqif midaysan oo lagu dalbanayo joojinta dagaalka ka soconaya magaalada go'doonsan iyo waliba in Falastiiniyiinta la geeyo waqooyiga Siinaa balse aysan ahayn mid ay dowladda Masar taasi taageeraysay. qoraalka kama dambaysta ah ee shirku waxa uu cambaareeyay Israa'iil weerarka ay ku qaaday Dooxa hase ahaatee ma jirin wax ficila oo lagu daray. waxaa jiray saameyn dowladda Mareykanku ay ku lahayd shirkan taas oo suuragal ka dhigtay dowladaha Carabtu inay ka baqaan wax tallaaba inay qaadaan. wargeyska The Middle East Eye waxa uu leeyahay diblomaasiyiin Masri ayaa sheegay in Mareykanku uu door weyn ku yeeshay natiijada shirka. wafdiga Qatar ayaa ka soo laabtay Washington iyagoo wada fariimo ku saabsan in wax go'aan toos ah aan laga qaadan Israa'iil. Mareykanku waxa uu ballan qaaday in madaxweyne Trump uu si shakhsi ah u xakamayn doono ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu taasoo ay Imaaraadku si xooggan u taageereen tallaabadaasi. tani waxay muujinaysaa dhabarjabinta Carabta qaarkeed ay isku sameynayaan. ra'iisul wasaaraha Israa'iil madaxweynaha waddanka Masar ayaa u aqoonsaday sanadkii 2014 Israa'iil inay tahay mid ka mid ah wadamada cadowga ku ah dalkiisa hanjabaado dhowrana ay isdhaafsadeen dhowr jeer oo kala duwan. haddaba muxuu yahay heshiiska dowladda Masar ay miiska soo saartay ku aadan dhismaha ciidamadan ee la gaaray 1950 maxaase ka jira khilaafaad kala duwan inuu weligii arrintan salka ku hayay. heshiiska difaaca ee 1950 waxaa loogu talagalay in dalalka Carabta ay isku duubni ka yeeshaan difaac iyo dhaqaale balse muddo dheer ayuu la daaladhacayay khilaafaad siyaasadeed iyo danaha ciidanka ee dowladaha xubnaha ka ah oo si weyn isku khilaafayay. sanadkii 2015 Masar ayaa mar kale isku dayday in hindisahan uu soo noqdo iyadoo ku baaqday in ciidan midaysan oo Carbeed la dhiso hase yeeshee khilaafaad mar kale soo laabtay ayaa suuro gelin waaya arrintaasi inay dhacaan. falanqeeyaasha siyaasadda ayaa ku tilmaamaya diidmada cusub ee hindisaha Masar cashar ku saabsan muujinta in weli aan la gaarin midayn dhab ah oo military oo Carabta ay xilligan wajahayaan marka la fiiriyo xaaladda taagan. dowladda la yiraahdo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqday in haba yaraatee aan la gaarin xilligii ay samaysan lahaayeen hubka nuclearka. sidaasi waxaa sheegay sargaal sare oo ka tirsan dowladdaasi xilli wadamada reer galbeedka iyo kuwo kale ay si weyn uga walaacayaan oo Israa'iil ay ka mid tahay in dowladda Masar ay gacanta ku dhigtay nuclear marka la fiiriyo dhismaha mashruuca horumarinta warshadaheeda. wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa arrintan warbixin dheer oo xasaasi ah ku qoray waxna uu leeyahay. wargeyska Ra'yul Yawm ayaa ku waramay in saraakiil baarlamaan iyo mas'uuliyiin Iiraani ay xaqiijiyeen in Iiraan weli aysan samaysan hub nuclear balse ay leedahay awood si dhaqso ah ay ugu samayn karto haddii loo baahdo iyadoo la sheegay in ay tahay inay isku diyaarinayso jawaab celin suurtagal ah haddii weerar lagu soo qaado waddankaasi in ay adeegsato hub nuclear. Kamran Ghazanfari oo xubin ka tirsan golaha amniga ee gudaha baarlamaanka Iiraan ayaa yiri Iiraan ilaa iyo hadda ma samaysan hub nuclear balse waxay leedahay awood ay ku soo saarto hub nuclear haddii loo baahdo. waxaa laga yaabaa in la kordhiyo heerka natiijada ama nadiifinta iyo waliba bacriminta uraniumka ilaa 90% iyadoo jirta buu yiri qaab sharci ah oo loo maraya arrintan. ninka wuxuu intaa ku daray in Iiraan ay tahay in ay keediso qadar ku filan oo uranium si ay
gacanta ugu dhigta baa layidhi ujeedooyinkeeda ku aadan samaysashada hubka nuclearka haddii cadowgu adeegsado hub noocaasi ah, taasi oo sidoo kale uu yidhi iiraan u oggolaanayso in muddo gaaban gudaheed ay bixiso weerar jawaab celina. hadalkan marka la fiiriyo khubaradu waxa ay ku tilmaamayaan in iiraan ay u muuqato inay bambooyinka qaarba sii diyaarisay haddii ay leedahay jawaab ayaan bixin karnaa. dhinaca kale mas-uul kale oo ah hafayeenka madaxtooyada ee dalkaasi iiraan ayaa ku adkaystay in baarlamanka uusan aamini doonin tallaabooyinka reer galbeedka iyo guud ahaanba dowladda iiraan haddii ay bilaabaan waxyaabaha loo yaqaano cunaqabataynta ay doonayaan inay ku soo rogaan waddankaasi. warbixintu waxay xuseen in golaha ammaanka jimcihii uu dib u dhaqangeliyey cunaqabatayn qaar ka mida iiraan, iyadoo britain, faransiiska iyo jarmalku ay hore u bilaabeen habab cusub oo 30 maalmood oo ku saabsan in cunaqabatayntaasi lasoo dhaqangeliyo. iiraan ayaa ku jawaabtay haddii cunaqabatayntaasi meesha la soo saaro in ay kaga jawaabi doonto inay ka baxdo heshiiska xakamaynta hubka nuclearka. akhyaartana la socota ay tabinta qaybtan iyo barnaamijka Barrow Show inta ayaan ku gabagabeynayaa. barnaamijyo kale ayaa noo soo socda, ha ilmaamina YouTube-keena subscribe saartaan. aad baad u mahadsantihiin. Ramas Hotel and Restaurant waxa uu leeyahay adeeg dhameystiran waxaana ku diyaara qolol jiif oo heer sareeya, hoolka aroosyada iyo shirarka, maqaayad furan 24 saac oo leh raashin dheef iyo dhadhan macaan, internet xawaare sare leh, wiish iyo amni joogto ah. Ramas Hotel waa doorashadaada ugu fiican waxaana uu ku yaalaa Bakaaraha agagaarka isgoyska Carweydka.